عوني حندورته يمضوا باش igu jirtay waabana iga qaryaaba xundurteeda iga cawriinina haddii ay marna commentiyada laga bixiyay videogan qofka ugu horeeya waxa uu yiri waa qof wanaagsan runtii qofka labaad wuxuu qoray asturnaantu haddii ay sidan tahay qaawanaantuna waa sidee qofka saddexaad wuxuu qoray majarteenka sharmutooyinkooda ayaa ka badan hawiyaha balse tala ahaan waxaan u sheegayaa dadka Soomaalida ah in ay qabiilka ka daayaan hal qof inay ku caayaan qabiil dhan awgeed taas waa iga talo daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan ku soo dhawaada channelkeena Somali Week barnaamijkeena maanta waa barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee Somali Comment waxaynu ku soo qaadan doonaa commentiyada laga bixiyay fiidiyoda TikTok-ta aniga hay cunayn xundurta iyo madurna baashas ba igu jirtay waabana iga qaryaaba xundurteeda iga cawriinina marmar bay iska soo dhacdaa moogtay laakiin maduro wali sas baan ku asturanahay aniga gabdhaha asturan oo surwaalka qabaa igu daraan gabadhan waa Amal Leman waxay kamid tahay dadka caanka ka ah barta TikTok-ta fiidiyogan markii ay soo duubtay ay ku hadlaysay inay asturan tahay isla markaana ay xundurta qaawanayso walaynu eegno commentiyada laga bixiyay dadka fikradooda qaar caayay iyo qaar amaanay iyo qaar difaacaya way jiraan balaynu isla bilaabano commentiga koowaad waxa ka bilaabanaa Khadra Kuweyn waxa ay tiri gabdhaha asturan hal laygu daro kute ay leedahay wiilhoog waxa uu soo qoray firiqo maxaad isla kay hor haysaa hadda kaasi waxa uu soo qoray naaskaaga taawo saaxiib subxaanallah Soomaalida waxad muddaa xagga naaska in laga raacay meel daran bay eegayaan inta badan oo doobka ayaa ku badan ayaan filayaa commentiga ku xiga hadii aynu eegno waxa uu soo qoray abaaye macaan maanta waa adduunyo barina waa aakhiro marka ilaahay ka cabso run ahaantii si wanaagsan ayuu ula taliyay qofkaasi qaybta ku xigta hadii aynu eegno waxa uu soo qoray kaasi maba ayna natusin ee surwaalka ayaa ku qarisay xundurta ayuu sheegayaa qofka ku xiga waxa uu qoray naasa yariis ah ayaa leedahay subxaanallah kaasi waxa uu qoray naas ayaan arkayaa bal markaan leeyahay doobab ayaa u badan yihiin dadka TikTok-ta ragga ku jira wada la yaabaysan kaasi waxa uu soo qoray ilaahay ka cabso duliyay yahay miya uga jeeda waanu la talinayaa waanu caayayaa qofka ku xiga wuxuu soo qoray naaska bidix dhag baa gashatay subxaanallah balday idinku gabigeedba waxay ka sheekeynayaan waa naasun arrinkoodu Soomaalida markaad aragto raggooda okay qaybta ku xigta ayaynu u gudbinaa run ahaantii commentiga ugu sareeya waa fahmi waay waxa uu ka hadlayo ay ayaa u yiraagtahay run ahaantii waa ka boodaya qofka ku xiga waxa uu yiri xundurta maxaa ka sheegi bakhaar baad noqotay sidii wadooyinka nin kasta ku sii maro oo ku soo maro inta yan lacaayin baan lahaa waxa loo sheego Soomaalidu waa negative comment intooda badan haddii aad Soomaali tahay oo aad Muslim tahay ha laga dareemo dhaqankii Muslimka alla ka cabso sidaas oo kale u hadlayaan oran lahaa dadka commentiga ku xiga ayaynu tagnaa qaar ban ka badboodayaan inta badan cay ah war waxan adduunka ayaa ka qabtay soo qoray kaasi waxa uu qoray dharka iska dhigsaa ayaad ku qurux badan tahay oo ka sii waalayaa baan oran karnaa kaasi waxa uu qoray gabadhan xanuun baa ku dhacay way buurnaan jirtay ee iska ilaaliya waxa uu iska dhigayaa qof hore u yaqaanay balse waxaan u arkaa inay cantarafaynoon tahay waynu ka gudbinaa muuqaalka ku xiga ayaynu gudbinaa hablaha qarnigaada qooraysato hoos gabadhan wajigeeda ayaa aad loola yaabay dad badan ayaa comment ka soo bixiyay wajiga markaad sidaa u eegto nin ayaad moodaysaa shaarubaha garka suunihi way isku dhageen bal dadka waxay yiraahdaan ayagna in Soomaalidu inagoo og inay commentigeedu inta badan negative yahay bal maxay sameynayaan waxa uu qoray ka u horeeya hal ii sheego maxay tahay waxaan aan arkayaa waa uu la yaabay waxa la wuxuu ku sheeg garan waayay ka ku xiga waxa uu qoray hormoonada ragga ayaa kugu mudan ayaa yiri ka ku xiga waxa uu qoray yaa ila arkay qoftan inay daawo isticmaashay qofka ku xiga wuxuu qoray allihii ku abuuray eed ma lahayn indhihii ku arka ayaan daran aynu ka gudubno commentiyada qaybta ku xigta qofka u horeeya waxa uu soo qoray abaayo daawada bis iska dhamiyo ka waday bis kaliya soo qoray waxa ku xigta waxa uu qoray waxaan weji lama dhihi karaba qofka ku xiga waxa uu soo qoray qurux badan ah cilmi ah subxaanallah Soomaalidu qofka ay gacanta u qaadaan run ahaantii ay way u dhameynayaan waa dad commentigoodu inta badan negative yahay aynu eegno
commentiga qaybta ku xigta. Qofka ugu horeeya waxa uu soo qoray jinni food leh miyaa. Qofka ku xiga waxa uu qoray talow haday wajiga waxan ku leedahay hoos ka waran subhanallah. Qofka ku xiga waxa uu qoray alla waxan fool xumaa. Waxaan kula talinayaa fool xumada Ilaahay abuurtiisa laguma tilmaamo qof kasta oo Ilaahay abuuray waa qurux badan yahay. Qofka ku xiga waxa uu soo qoray wajishoonay waad iga naxisay wallahi qaraacan baa tahay. Qofka naxay ayaan filayaa. Aanu ka sii gudubno qaybtan qofka ugu horeeya waxa uu soo qoray waxaan ma wajiba waxaan ma jimba mise waa insi. Qofka ku xiga waxa uu soo qoray waxaan isoo eegayaa hadda ma futa timo badana waan yaabay bal soo sheega anigu waan fahmi waayay subhanallah. Qofka ku xiga waxa uu qoray fool xumo hooyadeeda tahay fool xumo hooyadeeda ayaa tahay u fool xumo ku dishay. Qofka ku xiga waxa uu soo qoray hadda sidan ma u qurux badan tahay waxba ina helay hadda sidan ma u qurux badan tahay waxba ina helay. Suuniyo qoran ayaa uu soo qoray qofka ugu dambeeya. Asxaabta waxaan u sheegayaa haddii aad commentiga Soomaalida akhrido aad ayaad ula yaabaysaa siday u kala aragti duwan yihiin mid waa caytamaya mid waa amaanaya qofka waxay ka soo qaadayaan wallahi runaantii aad iyo aad ayay niyadda uga dhaawacayaan dadka maaragtay aan baranin ee qurba joogtiga meelahaas ee qalbi xabxabka aan runaantii ma adkaysan karaan commentiga Soomaalida marka la eego waayo waa negative 100%. Aanu ka sii soconno muuqaalkan ugu dambeeya maanta ee aynu ku xigsiinano waxa uu noqonayaa baby let me see it wewe nani uwe na heshima bwana sawa uwe na heshima ndugu yangu sawa wewe vipi bwana muuqaalkan Samiixa Khaliil waxaynu ku soo asaga commentigiisa ka sheekayn meelno balse xoogaa madadaala ahaan ayaynu soo qaadanaynaa waa muuqaal qosolkiisa wata halka sare waxa lagu soo kala qoray taken iyo single waa muuqaal kala doorasho ah waxay kala dooranaysaa inay tahay qof single oo aan reer lahayn ama ay taken tahay oo ay leedahay xaas. Marka sida muuqaalka ka muuqata markii hore waxay u dhaqaaqday dhinaca xaaslaha kadib waxa dul saartay cod aad moodo in laga soo joojinayo leeyahay ka noqo xaaslama tiide maadaama single tahay xagaaga ku bir oo maagis oo kale marka iyadoo ka careysan ayay xaga kale u noqotay sida ay u jaleeso ayaa muuqaalka aad iyo aad cajiib ah bal aan mar labaad idinku celiyo. baby let me see it wewe nani uwe na heshima bwana sawa uwe na heshima ndugu yangu sawa wewe vipi bwana hilmaamay ka haro ismahayna jacaylka hamigayga waan ka saaray hay xasuusin jacaylka balaynu eegno ayaan beebina waxa ay ka sheegaan commentiga ugu horeeya aan soo qabto qoftan liicata inay u eg tahay inta ila aragta loo fiisaara ayay wiininkaas Soomaalida faartooda aad ay u shaqeysaa daawadayaal muuqaalkan qaybtiisa dambe waxaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena labaad oo noqon doona qaybtii labaad ee taxanaha Somali comment waxaad ku daawan doontaan maalinta berri insha Allah muuqaalkan intaas ayuu ku gabagaboobay. Assalaamu calaykum.